showkii yeeray bahdina saxaafadda inaan ka hadlo arrimo shalay ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cabdiraxmaan Ciro hadalladaas oo daaranaa dood uu gudoomiyuhu ka keenay xariga xildhibaan Dhakool gudoomiye Ciro wuxuu yiri xildhibaan Dhakool sharci darro ku xidhan yahay waana dastuur jebin xarigiisu sideedaba horta waa dastuur jebin waxaan leeyahay xildhibaan Dhakool sharci darro kuma xidhna sifa sharciga waafaqsan ayuuna ku xidhan yahay wuxuuna si cad ugu xadgudbay jiritaanka iyo gooniisutaaga iyo sharciyada iyo dastuurka uu xildhibaanka ku yahay ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dhakool wuxuu sheegay in 18 May ay tahay maalin madow wuxuu sheegay inay tahay maalin aan gobonimo lahayn maalin qaran aan ahayn wuxuu sheegay inay tahay maalin aan Soomaaliland taariikh u lahayn wuxuu sheegay inay tahay maalintii la qaxiyay beelaha darafyada idimay maalin gobonimo ma aha Soomaaliland oo ma maalin taariikh leh maalin qaran ma aha uma dhaqan maalin qaran shirkii burco ee lagu aasaasay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May 1991 ay u dhamaayeen guud ahaan reer Soomaaliland ayna kow ka ahaayeen Garaad Cabdiqani Garaad Cali Sheekh Muuse Goodaad Allah u naxariistay iyo raggii kale ee tirada badnaa xildhibaan Dhakool uu ka been abuuray midnimadii maalinta lagu go'aamiyay ee lagu gaaray gooniisutaaga dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dhakool wuxuu been cad ka sheegay inaan Soomaaliland xusin halgankii daraawiishta xaasha dastuurka Soomaaliland wuxuu mudnaan weyn siiyay oo ku xardhan xuskii halgankii daraawiishta taasina waa been cad oo bulshada ku kala qaybinayo haddaba sida ku cad warqadda ka soo baxday xafiiska xiriiryaha guud ee sumadeedu tahay sala 9619 kuna taariikhaysan 11 bisha shanaad ee 2019 ee qodobada eedeynta xildhibaan Dhakool qodobka 184 xeerka ciqaabta guud oo ka hadlaya khiyaamo qaran oo lagu wiiqayo gobonimada iyo jiritaanka Soomaaliland maadaama uu si toos ah ugu bandhigay warbaahinta inuu ka soo horjeesto maalinta madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May qodobka 213 xeerka ciqaabta guud oo dhigaya iska horkeenis bulshada Soomaaliland sababtoo ah waxa uu shir-saxaafadeedkiisa ku sheegay in maalintaasi tahay maalintii la qaxiyay beelaha darafyada Soomaaliland una tahay maalin madow halka beelaha SNM ka dhigayaan maalin qaran soona saaran caruurtooda iyo dumarkooda qodobka 215 xeerka ciqaabta guud oo ah fidin warar been abuura oo lagu kicinayo bulshada Soomaaliland oo keenaysa nabadgelyo darro sababtoo ah waxa uu hadaladiisa ula jeeday inuu ku waxyeeleeyo midnimada iyo wadajirka shacbiga Soomaaliland si ay u abuuranto jawi colaadeed iyo nabadgelyo darro loona waayo nidaamka iyo kala dambeynta sharciga warkaas uu ku baahiyay warbaahinta kaasoo laga dhageystay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba dembiyadaas oo ah kuwa ka dhana qarannimada Soomaaliland isla markaana qabashadiisu ay waajib tahay isla markiiba sida uu dhigayo qodobka 35aad ee xeerka habka ciqaabta sida awgeed waxaan shacbiga Soomaaliland u sheegayaa gefka cad ee qaranka laga galay ee gudoomiye Cabdiraxmaan Ciro uu dooda ka keenay sharci daradana ku tilmaamay soo macnaheedu maaha inuu ku raacsan yahay oo uu la qabo 18 May ay tahay maalin madow haddaba nin kale hal sii daayo iyo ka doodaya ee gudoomiye xisbiga mucaaradka ee wadani uu kooga ka yahay 18 May ma maalin cad baa mise maalin madow hadalkii golaha wakiilada marnaba la iskuma diidaneen in xildhibaan Dhakool uu gef qarankan ka galay balse waxay hadalladoodu daaranaayeen habkii loo maray qabashadiisa arinta